رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام أحاديث رمضان waa barnaamij aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mid a axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. waxaa laga wariyey abu ayuubin alansaariy alla raalliha ka ahaadee inuu yidhi waxaan maqlay rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama oo leh qofkii ramadaan sooma dabadeedna raacsiiya 6 shawaal ka mid ah waxay la mid tahay sidii qof wakhtiga oo dhan soomay. waxaa wariyey imaamu muslim. marka xadiidku waxa uu toos u caddaynayaa in ay muhiimad gooni ah leedahay in la soomo 6 maalmood oo ka mid ah bisha shawaal. waa bisha ku xigta ramadaanta. waxaa loo xisaabinayaa ramadaanta mar walba in ay 30 buuxda tahay oo ajarkeedu waa saas. 6da beri oo shawaalku waxay ku noqonaysaa 36. waadna ogtihiin oo alleh subxaanahu wa tacaala waxa ugu yar ee uu wax ku abaalmariyo waa in lagu 10 laabo. 36daas haddii aad 10 ku dhufatana waxaa kuu soo baxaya 360 oo ah cadadka maalmaha sanadka. allah naga dhigo kuwa uu waafajiyo in ay soomaan 6daas beri. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام